marka la yiraahdo ardayga jaamiciga ah dadaalka looga baahan yahay lama soo koobi karo laakiin markaan la hadlayno arday muslim ah oo qaangaadh ah oo mukallaf ah dadaalka laga rabo uu ka duwan yahay arday kasta oo kale dadaalka marka ardayga jaamiciga ah ee muslimka ah ee galabta halkan aan isku weydaarsanayno in la xaqiijiyo waxa looga baahan yahay waxaan ku soo ururin doonaa waxa aan ka fahanno laba aayadood oo quraanka ka mid ah dadaalka loo baahan yahay qayb ka mid ah Dr. Maxamed Cali baa inala jooga oo ka hadli doona qayb ka mid ah professorka ayaa iska leh waxaan rajaynayaa in dhowr dhinacyo badan aan ka fiirin Allah tabaaraka wa taala isagoo inala hadlayay wuxuu quraanka ku yidhi Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum dadaalka koobaad ee ardayga jaamacadda bilaabaya ama xataa kuwa dhigta iyo kuwa dhameeyay ee sida hadda professorka oo kale darajaadkii isdaba taxnaa ee cilmiga laga yaabo inay soo afmeereen ama hal iyo waxaasi u dhiman yihiin laga rabo waxa ugu horeeya horta qofku inuu aqoonsado oo xaq uu leeyahay uu ardayga ku leeyahay uu garto khaliqii abuuray ardayga aan la hadlaynaa waa arday muslima wey oo isaga dartiiba adduunkan loo taagay adduunkan aad arkaysid ee samaawaadka iyo dhulka iyo kulli waxaa loo taagay oo loo rakibay oo Ilaahay tabaaraka wa taala uu sii diyaariyay intaan basharkaba imanin in qof muslim ah oo mu'min ah Ilaahay ugu sujuudo oo ugu rukuuco Ilaahay uu ku caabudo qofka marka la hadlayo ee dadaalka laga dalbaya waa qofkii adduunkan oo dhan loo taagay ardaygii loogu talagalay adduunkan oo dhan inuu guul adduunyo iyo guul aakhiraba ka gaadho dadaalka ugu horeeya ee laga rabo waa inuu qofku rabbigii abuuray uu aqoonsado Ilaahay tabaaraka wa taala isagaa kuu doortay inuu ka mid dhigo adoomadiisa uu adduunka ku soo kordhinayo wuxuu go'aamiyay oo isagu uu qaatay markaad dhalata kadib inuu ku arsaaqo Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum labadaas waa fadli lagu galay oo xagga Ilaahay lagaaga galay laba kala ku xigta marka thumma yumitukum thumma yuhyikum xaq Ilaahay uu inagu leeyahay inaan garanno waxay u baahan tahay inaan gudanno waajibaadka uu ina saaray waynu ka duwannahay dadka aan muslimka ahayn ee adduunka jooga ma la socotaan inay adduunka ku nool yihiin oo waliba daris ay nala yihiin oo wadamadan dariska inala ay ka mid yihiin dad qaaqaawan oo aan dhar gashanayn oo heerka ka jooga nolosha bini aadamku hadda ay marayaan ma la socotiin inay bini aadamka ka mid yihiin oo waliba daris ay nala yihiin oo anigu indhahayga aan ku soo arkay bani aadam ninka xaaskiisu markay ka dhimato 7 usbuuc la galiyo oo dib u aroosay iyadoo meydab u aroosay dad wadamadan dariskeena ay ka mid yihiin
xaaskiisu markay ka dhimato dib buu aroosaya wuu sagootinaya innagu waan ka duwannahay muslim baan nahay ardayga jaamiciga ana meesha uu cilmiga ka jooga hadda markuu jaamacadda bilaabayo ma aha qof la farbarayo ma aha qof waxyaabo yaryar loo sheegayo tacliinta saraa lagu magacaaba oo wasiirada ka soo noqda ay fadhiyaan tacliinta saraa lagu magacaaba qof tacliin sare la barayo ama isagu soo doontay oo muslim ah xuquuqdii ilaahay marka dadaalkiisa inuu ku dari waayo waa dadaalkaasi marka wuxuu noqonayaa dadaal aan qiimo lahayn waana sababta keentay ilaahay inuu ina abuuray iyo inuu ina arsaaqayo iyo inaan dhimanayno oon soo noolaanayno inuu isku hal aayad ku sheego weliba aayad nuskeed waa adduunkii iyo aakhiradii iyo wixii nolol ahaayee labadooda ku jiray oo dhan baa aayad barhkeed lagu sheegay qofka muslimka ah waa mas-uul waa xilkas waa bani aadamka qofka ugu caqli badan hadduu jaamici yahayna waa ka sii xeel dheeri ardayda jaamacadaha soo haleelaya soo aadaya dadaalka ugu badan ee u yaalla waxaa kow ka ah inay noqdaan dad ilaahay ku xidhan oo iyagiyo ilaahay aan la kala haynin oo ilaahay heshiis la yihiin wax ilaahay xaggiisa uga yimidna aan lala baryaynin jaamacadaha ay dhiganayaanna uusan waqti badan kaga bixin in la yidhaahdo war toosnaada waqti badan uusan kaga bixin ee wax kale looga faa'iideeyo sidaa darteed ardayga muslimka ah ee jaamiciga ah waxa uu xaqiijinayo ma aha wax adduunyo ku saabsan keliya noloshaan hadda uu joogo iyo nolosha dambe labadaba wuxuu ku guulaysan lahaa buu xaqiijinaya labadabana wuxuu awood u leeyahay maadaama uu muslim yahay oo jaamacadda uu dhiganayo inuu wax badan ka xaqiijiyo qodobka koobaad waa xaqa ilaahay wey xil baa ina saaran adduunka 7 ilaa 8 bilyan baa ku nool oo bani aadam 7 ilaa 8 inta u dhaxaysa inagu hal iyo waxbaan ka nahay ka muslimiinaan hal balaas baan ka nahay waxbaa inoo dheer bilyan inta kale ilaahay ma aqoonsana dadka ugu horeeya ee laga filaya inay dadkaas badbaadiyaan waa dadka jaamacadaha ka baxaya way suurtagal ma aha arday jaamacadeed oo muslim ah oo dhul muslim degan meeshii isaga laga rabay inuu adduunkaas wax ka badbaadiyo isagii in la ilaaliyo sida caruurtii sax maaha qorshahaaga waxaad ku soo darsanaysaa oo noloshaada aad ku soo kordhinaysaa inaad jaamacaddan dhiganaysid iyo jaamacadaha kaleba sida doctoorku uu sheegay oo doctoorku waa kii tilmaamay kulankaani inuu yahay kulan arday Soomaaliyeed lagula hadlayo aysan ahayn arday jaamacaddan kaliya ku saabsan way ka guda ballaadhan tahay bil kulanka inaad jaamacad dhiganaysid tacliin sare baranaysid xilka aad qaadaysaa marka uu yahay xil adiga iyo bulshadaada iyo adduunkaba adduunkoodiina u wanaajinaya aakhiradoodiina u wanaajinaya aayadda labaad ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi suurati an-nahl wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلهي تبارك وتعالى علوشه يوينكين بذيك سو ساري إذنكو أن وحبا قرنين قفكو مركو علوشه كسو بحو دقيهيسو مقلكيسو مشاقيني إساقا نعفي أماله أرقيسونا إساقا نعفي أمالها
caqligiisa iyo garashadiisuna isaga nacfi uma laha. oo adiga arkay marka uu dhasho waa la soo qaadayaa, waa loo maydhayaa, maro fiican baa loo huwinayaa, meel baa la dhigayaa, mudduu dhacayaa uu jiifaya. dahabka iyo dabku waa isugu mid. haddaad dab u dhiibtid iyo haddaad dahab u dhiibtid iyo haddaad tidhaahda laga bilaabo maanta boqor baa tahay iyo waa lagu dilayaa, midna ma kala garanayo. qof aan soo marinayn laguma jiro. si tartiib tartiiba ayaa qofka maqalkiisii u koraya, araggiisiibaa u koraya, caqligiisiina waa koraya. maanta ardayga 20 jirka ah matalan, qofka 20 jirka ah 20 sano waxaad ku dhufataa 360 7,200 baan filaya oo maalmood. 7,200 oo maalmood baa soo nooleed. 7,200 oo maalmood baa wax soo cunays. 7,200 oo maalmood baa soo xaragoonays. 7,200 oo maalmood baa wax soo arkays, soo caafimaad qabtay. suurtagal ma aha adigoo intaasoo dhan jiray inaan caqligaagii wax iska bedelin, oo maqalkaagii wax iska bedelin, oo araggaagii wax iska bedelin, oo aad weli ku fikiraysad in lagu xanaaneeyo oo lagu hayo oo lagu celceliyo oo waxaan samee, waxaan jooji, waxaan samee lagu yidhaahdo. 20 sano oo khasaartay way. waxaa la yidhaahdaa qofka bani aadamka ah caqligiisu wuxuu u yahay, cilmiga iyo caqliga marka la fiiriyo waxay isu yihiin baa la yidhaahdaa dhulka iyo roobka. dhulka iyo roobka. roobka ilaahay wax badan buu qur-aanka ku sharxay. intuu soo da'o ilaahay uu soo dejiyo dhulka markuu galay in wax soo saaray. hadba wuxuu wax u soo saarayaa roobkaasi dhulku nooca uu yahay. halkan hadda aad fadhidaan ee qayb ka midana doog baa ka baxay, qayb ka midana waa waxba kama baxayaan. hadduu hadda roob ku doo qaybtaasna doog baa ku koraya, qaybtaana biyo way ka tegayaan. caqliga bani aadamku waa diyaar sida dhulku u yahay oo kale diyaar. qof walba caqligiisii waa diyaar. waxa uu midho uga soo baxayaan ama nacfi uga soo baxaya ama qofka uu u koraya hadba aqoonta uu caqligiisa ku shubo unbuu koraya. sida roobku ay dhulka waxa weeye wax uga soo saarayaan, oo haddii biyo yar ay ku da'aan ay wax yar uga soo baxayaan, haddii biyo ku filan ay ku da'aan wax fiican uga soo baxayo, haddii maxaan ku yidhaahdaa geedo qodaxla lagu beerana ay geedo qodaxle u soo baxayaan, haddii midho la cuni kara lagu beerana midho la cuni kara ay u soo baxayaan. sidaasoo kaleba caqliga haddii cilmi qofka anfacaya la geliyana wax qofka iyo bulshada iyo hareerihiisa anfacaya baa soo baxaya. haddii waxaan anfacaynin lagu shubana waxaan anfacaynin baa soo baxay ayaa soo baxaya. sidaa darteed qofku cidna uguma danaynayo waxbarashada, isagaa danaysanaya, isagaa ku danaysanaya, isagaa garanaya, isagaa ku faa'iidaya, ummaddiisa ugu faa'iideynaya. soo lama socotaan dad badan oo innaga inala mid ah oo weliba dhallinyaradiinna oo kale ah oo waddanka degan oo waddanka ku dhashay oo gurigoodii jooga oo wax walba qabsan kara, inay dad iyaga oo kale ah intay doon u raacaan oo ay bad sii maraan oo adduunyo ay sii maraan oo qaarkood ay sii dhintaan, waxay ka raadinayaan uu yahay kuwa iyaga la da'a inay martigeliyaan. taas waxa weeye caqligii oon laga shaqaysiinin wey. sidaa darteed caqliga inagu jira waxa aan ku kobcin karno oon ku weynayn karno
oo indhaha aragoodu ay ku furmayaan oo dhagaha maqalkooda uu ku furmayo oo garashadu ay ku weynaanayso waa hadba inta cilmigeennu u dhan yahay. aqoon baa loo baahan yahay. qofka bani aadamkii garasho u baahan yahay, inuu wax barto u baahan yahay, inuu wax garto u baahan yahay. waxaan xasuustaa nin ganacsado ah, anigoo markaa dugsi dhexe bilaabaya yaa nin ganacsado ay yimid oo raba inuu qaato qandaraas sonkor lagu keenayo, laakiin wuxuu u baahan yahay in loo qoro arjidii uu ku codsan lahaa inuu qandaraaska ka mid noqdo, laakiin ma qori yaqaano isagu, ma qori yaqaano, lacagtii buu hayay. luuqad kalaa lagu qorayay marka oo aan af Soomaali ahayn. warqaddii baan u qoray. waan xasuustaa markuu qandaraaska soo helay nooca macawista ahaan, hadiyad ahaan macawista uu ii keenay. waan xasuustaa 30 iyo waxaa ka soo wareegay 40 iyo waxaa ka soo wareegay 2 sano. 40 iyo waxaan la hamay 8 sano ka soo wareegay. waan xasuustaa sababtoo ah qoraal yar iyo waxaan ku helay iyo codsigii anigu aan u qoray baan ku helay. aqoon laguma khasaaro. sidaa darteed qodobka labaad ee ku soo gabagabaynayo ee aayaddaas laga fahmayaa waxa weeye hadba inta adigu aad bixiso oo dadaal ah oo aqoonta u jeesatid iyo caqligaaguna koraya. waxaad awood u yeelan kartaa sanadka koowaad ee jaamacadda inay jaamacaddu ku shaqaalaysiiso adoo jaamacadda dhiganaya dadaalkaaga dartii. waxaad awood u yeelan kartaa sanadka koowaad ee jaamacadda aad dhiganaysid inay jaamacaddu intay wax badan kaa fahanto adigu waxaadan hadda ku xisaabtamaynin ay kuu soo jeediso oo qiimo leh oo sharaf leh baa dhici karta. waxaad qorshaha ku darsataa inaad mar walba noqotid wax walba oo loo baahan yahay oo la qabanayo qof ka tirsan inuu qabto oo khayr oo jaamacadda ka mid ah jaamacadda aad dhiganaysid. waxaan marka ku soo gabagabaynayaa labadaas aayadood oo la isu geeyay waxaan ka qaadanaynaa koow dadaalkeenna oo dhan inaan isugu geyno inaan ilaahay tala saarano oon ilaahay ku xidhnaano. 2 waqti yar oo intaa la eg daqiiqad ha ahaado wax ka yar ha ahaado inuusan meel cidlaa kaaga bixin. aad baad u mahadsantihiin. profesorada ayaan u daynayaa inay meelo kale ka fiiriyaan. qofkuna waxa uu hayo oo dhan ama ku jiro oo dhan hal maalin ma sheegi karo. baaraka allaahu fiikum wajuziitum khayran. sala allahu calaa nabiyina maxamed.